السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكا برتويدن ayaa halkan ku jiro soo dhawaada walaashin Mansuur. Videogan wuxuu ku saabsan yahay gabdho walaala ayaa mar walba waxay soo weydiiyaan su'aalihii ku saabsanay sidaas iyo maaragtay dhulka maadaama gabdho badan ay ku cusub tahay maaragtay dhul gadashada ama ay maaragtay ka aaminsan yihiin maaragtay hami maxaa kugu dhacay ee ka aaminsan yihiin hami oo maaragtay sidaas in maaragtay oo aysan hore weli aysan dhul u gadanin sidaa darteedna welwel fara badan oo ka heesto sidaa darteed maanta videogaas ayaa rabnaa inaan sameyno. soo dhawaada gambarkiina soo qaata. soo dhawaada YouTube channelkan waxaa looga hadlaa habka maaragtay wax loo save gareeyo, habka budgetka loo sameysto. waxaan ku dhahay dhammaanteen maaragtay isku hadaf ayaan nahay, isku hiigsi ayaan nahay, isku meel ayaan u wada soconaa. kulligeen doonta waan wada saarana, gabar walba meel ayay kasoo koraysaa, magaalo ayay kasoo koraysaa, laakiin kulligeen dad waxaan nahay isku wada hadafa oo isku wada halgan ah. YouTube-kan waxaan kusoo gudbiyaa fiidiyoyaasha inta badan looga hadlo see wax loo dhaqaalaystaa, sidee maalgashi loo sameeyaa, maxay hooyada maaragtay ay dhigi kartaa, maxaysan dhigi karinin, sidee wax loo maamulaa, because adduunyada wax walba maamul ayay u baahan yihiin. shayga ugu adag oo la maamulo maanta dunida aan joognana waa lacag, sababta lacagta maamul aad iyo aad u ballaaran oo muhiim u ay u baahantaa. ogaaw lacagtaada haddaadan si fiican u maamulin adiga maaragtay jeebkaada ayay ka jeeban tahay, oo mar walbo maamulkaadu xumaado dhaqaalahaadana wuu xumaanayaa. mar walba waxaa noqonaysaa qof bilaa lacag la-aana, mar walbana qof welwel ku nool. sidaan ognahabo dhulka wuxuu u baahan yahay intaadan dhul gadanin inaa marka horeetaba maaragtay warbixin fara badan aa ka haysatid dhulka iyo muxuu yahay dhulka. gabdho badan ayaa mar walba waxay igu dhahaan Mansuure waxaan rabaa dhul inaan gato, maaragtay waan cabsanayaa maanta waxaan ka walwalayaa in la iga dhaco dhulka, in maaragtay qof kale igu qaato, inuu qofka dariskayga igu soo sikado. sidee ku ogaanaa dhulkaa gadanaya inuu dhul saxa yahay iyo inuu dhul aan saxa ahayn? sidee ku ogaanaa dhulkaa gadanaya inuu dhul fiican yahay inuusan fiicnayn? maanta dhan maaragtay su'aalo fara badan ayaa maaragtay ka dhex guuxaayo, wixiina way rabaan haddana welwel iyo maaragtay shaki fara badan ayaa maaragtay iyo walbahaar fara badan ayaa haysto. sidaas darteed gabdhaha inta badan horta dhulka aad maaragtay uga walwalo ama aad uga maaragtay tashuushka fara badan oo ku furan yahay. ani waxaan kula taliyaa ka Mansuur ahaan waxaan dhahaa haba iskaba dhaaf dhul ha gadani, waxaad samaysaa guri dhisan gado. sababta gurigaada maadaama guri dhisan yahay oo maaragtay uu dhisan yahay kama walwalayso in lagaa dhaco, kama walwalayso guri maaragtay beena in lagaa gado. qofna guri beena lagama gedi karo. marka waxaan ku dhahaa guri gado. guriga markaa gadatidna isla marka wuxuu ku fiican yahay kira ayaa gashanaysaa oo dhaqaalana way kaaga soo noqonayaan, oo kiradaada ha kuu badnaato ha kuu yaraato bishii maaragtay wax ayaad ka helaysaa. marka waxaan ku dhahaa sidaa darteed guri gado. guriga markaa gadatidna hore ka kireysaan dhahaa. inta badan gabdhaha aadka maaragtay walwalka fara badan ugu abuuranya oo shakiga fara badan oo ku jiro oo ayaka dhan maaragtay walaaca fara badan oo maaragtay uu ku jiro qalbadooda maskaxdooda ka guuxiso. sidaas ayaan kula taliyaa. gabdhaha kaleeto oo ayaka iska caadiga ah oo maaragtay ay ka tahay taxadar ahaan iyo maaragtay wixii inaa iska hubisid inay noqdaan waxaa maaragtay aad ka taxadartay oo aad iska hubisay oo maaragtay aadan maaragtay ku degdeginin. sababta ani mar walba waa idinku dhaha degdegu ma fiicno. dhulka markaa gadanaysid inaa iska gadatid maahan, oo waa inaa ka fikirtaa maaragtay dhulkaa gadanaysid meeshuu ku yaalo wuxuu yahay, waxaasoo dhan inaa ka fikirtid ayaa loo baahanya. sidaa darteed gabdhahaas inta badan waxaan kula taliyaa inay qof ay ku kalsoon yihiin 100% qof ay ku kalsoon yihiin inay raadsadaan oo qofkaas maaragtay ay dhulka u dirsadaan. qof walba dhul lagama gadan karo. ogaadana dalaalinta adduunka qofka dalaalka ah lama aamini karo. dalaalka inta badan waxay u badan yihiin dadaan ilaahay ka cabsanaynin, waxaan jirin kuu sheegayo, hadduu rabo dhul raqiis oo lacag badan kuugu keenayaa. asaga waxaa u daran shilimaankaas yar oo dalaalka u helayo. laakiin qofku waa inuu qofaa ehel tihiin, qofaa ku kalsoon tihiin, qof ilaahay ka cabsanayo,
qof aad ku ogtihiin qof oo idiin naxaay inuu yahay Soomaali inta badan waxay tiraahdaa maxay ahayd ii sheeg waxaa la yiri gurbaan ama garabka ha kuugu jiro ama gacalka ha ku haayo marka qofka dalaalka ka dhiganayso dhulka ku gadaayo waa inuu yahay qof adiga maaragtay ku kalsoon tahay oo ehel aad tihiin oo maaragtay aan wax fiican maahane wax xun aan kuugu hogaaminayni inaata wixina ina iska hubiso warqadii la hubiyo dhulka dadka iskala la hubiyo oo ilaa xad laga taxadaro ayaa fiican gabdhaha markii inta badan waxay leeyihiin masuure dhulka aad ka qaaliga waa maan gadanaa mise dhulka raqiiska ah ani shakhsiyan hadaa nafsadeyda ka soo qaado dhulka haduu qaali yahay waxba kama faa'iideysa hadaad markaas hore ka dhis fadlan waxaan ka codsanayaa YouTube channelkayga inaad like saartid inaad subscribe ii sameysid inaad videoga ii share garaysid waa codsi walaaltinimo waxaan u halgamayaa halkankaygii 10,000 subscribes inaan gaaro waxaan ka baryayaa ama ka codsanayaa inaa intaas igu caawiso adiga waxba kaama dhibayso anigana wax weyn ayay ii taraysaa oo walaasha ama Mansuur oo si walaaltinimo leh si Soomaalinimo leh si dumarnimo leh kaaga codsanayso inaad subscribe ii saartid hadaadan hore iigu saarin haddii videogayga like aad hore u saartay waad mahadsantahay hadaadan weli videoga like saarin like ii saar videoga ii share garay ugu yaraan hal qof iigu share garay waadna mahadsantahay si fiican oo qurux badanna ugu soo dhawaaw YouTube channelkayga meel lagaa jecel yahay walaaltinimo iyo sharaf lagu hayo ku soo dhawaaw marka ani sidayda shakhsiyan hadaa nafsadeyda ka hadlo markaan dhulka aan maaragtay dhulba haduu yahay waxaan inta badan dadka kula taliyaa midka oo maaragtay raqiiska ah sababta ma taqaanaa dhulka markaad rabtid inaad isla markii degtid oo intaad dhul gadato aad hore ka dhisayso oo hore aad ka degayso ama hore aad ka ijaarayso dhul qaaliya markaas waa gadan kartaa sababtoo dhulkii waa dhul isla markii lacagtii soo celinayo oo isla markii deegaan aad rabtid inaad hore ka dhistid oo lacagta ku dhisanaysa waa u haysataa inkastoo sidaas ayba mar hadaaba rabtid lacagtaas u badan aa haysatid ee muhiimadu tahay inaad guri dhisan iska gadatid oo maaragtay meel fiican ku yaalo kadibna maaragtay ijaar fiican aa ka hesho laakiin muhiimada kaleeto waxay tahay dhulku haduuba iyo dhul aa rabtid inaad iska haysid oo waqti aa u sugtid ama waqti sanadyo badan aa haysanaysid dhulkaasoo kale wax degdega kuguma jiro wax maaragtay maanta rabo ilaa xad ilaa dhul qaaliya kadib kugu qasbaayo male sababtu waa wax aa mustaqbalka rabti faa'iido fiican aa ka heshid lacag fiican inay kuu korto sidaa darteed marka dhulkuu ka raqiisay dhowtuu kaaga faa'iido badan yahay waqtigay qaadane juhdigay qaadane hore kama qaaliyoobayo laakiin adigana markuu kuu qaaliyooba lacag fiican ayaa kuu korayso because mar walba waxay ku xirantay inta sanaa rabtid inaa haysid ma 5 sana hayne ma 10 sana hayne inta haynaysid ee dhulka ku xiran tahay ma 2 sana hayne ay ku xiran tahay 2 sana iyo 3 sana wixii ka badan faa'iido fiican laga helaa laakiin mar walba waxa gadataa habka jihada markaas magaalada dhulka ka gadanaysid meesha ma aragti jihada oo magaalada u socoto oo ha gadanin dhankii jihada magaalada ay ka timid meesha loo socdo dadka inta badan ay dhulka ka gadanayaan dhulka ka gado sida halkaas iyo Muqdisho markaa ka hadalno dadka inta badan waxay dhulka ka gataan meesha maaragtay ee hormuud dhulka ka gadato sababtoo mar walba waxay ogyihiin ayaka meesha lacag geliyaan inay maaragtay wadooyin saarayaan inay maaragtay maalgelin fara badan gelinayaan hadhowtina dhulkooda qiimo u yeelanayo marka mar walba sidaas oo kale waa inaa samaysido magaalada dhulka ka gadanaysid dadka maaragtay dhulka gato meelaha dhulka ka gadanayaan jihada ay magaalada u socoto waa inaa gadataa midna ogaaw dhulku waa nasiib dhulka iyo businessku waa wax nasiib ah qof walba iyo nasiibkiisa ayuu cunaa waxaa laga yaabaa dhul magaalo caasimada ku yaalo baadiyaheedu ku yaalo magaaladu meelay ka dheer tahay inaa istiraadid ma meeshaana hata 5,000 ka bixiyaa ma meeshaana 2,000 ka bixiyaa ma meeshaana 3,000 ka bixiyaa ma meeshaana 4,000 ka bixiyaa waaba baadiye magaaladu goormay soo gaaray waxaa laga yaabaa hal mar in wado inta la saaro ee wadadii kuu soo dhawaato oo dhulkaadi kuu qarxo marka dhulku waa iska nasiib fahmaysi marka ani inta badan waxaan kula taliyaa gabdhaha isku raranta inay gataan oo maarto dhulalka badan oo 5 baloor iyo 10 baloor isku xiran iyo 10 baloor 5 baloor 20 baloor waxa aad markaas aad iyo tabartaada inaa gadatid because aad hadda marabtid inaa dhistid hadda marabtid inaa maaragtay isla markii qarash umeeyay ku dhisatid laakiin berito intuu ku bato oo xoolo weyn oo fiican oo ku noqona sidaa darteed maadaama dhulka nasiib iska yahay mar walbaba dhul qaali ah gadan 5,000 dhul ka badan ha iska gelinin hadaysan ahayn dhul deegaan ah
oo isla markii aad dhisaysid ama lacag aad rabtay inay guriga iska taalo kale haddaad rabtay inaad 2 sano camal ay kuugu sii jirto intay guriga oolaan lahayd taas waa iska caadi oo kaba soo qaadad waxaa rabtaa guriga rabtaa inaad dhisatay 2023 haddana 2023 lacag haysataa lacagta intaa hayn lahayd dhul ayaa ku gaday meel deegaan oo meel fiican ku yaal lacag fiican oo qaali ayaa ka bixisay dhulkaas kaama qasaarayo wax buun oo ku dhalaya hadday ugu yarto sanadkii $1,000 xataa hadday ku korto lacagta intay guriga iska ooli lahayd haddii aad meel gelisid faa'iido ayay dhalaysaa oo lacagti waa lacag shaqeynayso oo dhulka shala lacagtu ahay maanta ma joogo 2023 lacagtu booski joogay ma joogo booski lagu gado 5,000 maanta hadday ugu yarto 5,500 u taga ama ka badan uu ku koray marka lacagtu intay meel iska oolaan lahayd way shaqeynaysaa dhulna way kuugu jirtaa oo xoolahaadi maaragtay lacagtu waa arteen sanadka ka dambaysa qiimadeeda way dhacay sanadka ka dambaysa adduunku sii qaaliyooba ogaaw gabdho badan waxay ugu leeyihiin Mansuur waxaan rabnaa lacagta intayno inaan dhahno mar ayay fursadu imaanay fursadu way imaanaysaa wayna fiicanta adoo diyaar inay fursadu ku imaato oo aad ka faa'iideysatid laakiin haddaad tiraadid lacag kasto isoo gasho meel ayaan dhigaa fursad iyo jaanis ayaan la sugaa ogaaw lacagta qiimadeeda inuu dhacaayo marka lacagta markaa haysatid 2 bil 3 bil hay fursad yar gaadgaad wax raaraadi wax baarbaar isla markiina kadib lacagta sidaas iyo dhulkii ku gado fahmaysin dhulka aad iyo aad u faa'iido badan hadaa dhul fiican oo nadiif heshid qof fiican oo maaragtay gacalka ahna uu ku gado oo sida aan idin sheegaba gurbaan reer xamar waxay dheen ama garabka kuugu jiro ama maaragtay isee gacalka ku haayo mar walbana dhulka maaragtay ka istiqaaraysta maaragtay dadaala isku day halgan far badan inaad sameeysiin sababtoo dhulka ka fiirsasho badan ayuu u baahan yahay markaasna waad guuleysanaysiin gabdhihii soo weydiiyay mar wada badanna dhulalka rabaan inay maaragtay su'aalo iga weydiiyaan waxaan rajeynaa videoga maaragtay inuu idin anfaco haddaa YouTube channelkayga ku cusub tahay fadlan like ama subscribe isag halgankayga waxaan ku jiraa 10,000 subscribe inaan gaaro waxaan kaa codsanayaa ugu yaraan hal qof inaan u share garayso videoga xiga intaa ku kulmi doono walaashiina Mansuur oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maazimna halkaas ayuu ka shanqarayaa maanta dhan مازن محمد مسويسي يا مازن هذا اللي وحو برتي إنه هذا عقو مرك ما أنت إنه هذا عقو ربا يا يوتيوب مرة أنا كايسيد مرة أنا كايسيد فيديو حين تاكو كل بدون السلام عليكم ورحمة